gobolka ayaa waxa uu sharaxay sharcigani cusub iyo faa'iidada uu leeyahay guud ahaanba Soomaaliya. maxaa alternative u ah qaabkan annaga aan dooranay waxaan dooranay qaabkaas oo maaragtay soo saar wadaaga ah. qaabab kale ma jiraan ee dunida ay isticmaasho oo ka duwan kan annaga aan dooranay. ogow kan annaga aan dooranay dunida waxaa isticmaalo 49 wadan ayaa isticmaala. marka keenan annaga aan dooranay kuwa ka duwan maxay yihiin? midka ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa concession. waa midkaas concessionka wuxuu hadal ka bilaabaa betroolka dhulka ku jira. mar haddii la saxiixo betroolka dhulka ku jira waxaa leh shirkadda Soomaaliya leh ma noqonayso. waxaa soo baxayso waxay leeyihiin mar haddii heshiiska la galo shirkadda betroolka iyadaa leh. marka waddanka muxuu leeyahay? marka waddanka wuxuu leeyahay waxaa la siinaa cashuur iyo wax loo yaqaano royalty. labadaasaa la siinaya. ka gudub nooc kale ayaa jira oo ah joint ventures. joint venture waa la garan karaa waxa waaye labada shirkadda iyo dowladda ayaa isku darsamaya. markay isku darsamaan ayagii ayaa maaragtay riskigii wada qaadanaya. ama riskay wada qaadanayaan ama hadhow damba profitkii wixii oo dhan wada qaybsanayaan. laakiin waxaa isku dhex jira qarashka ku dhex jira xataa expenditure-ka. waddan markuu xoogaa lacag leeyahay ayuu ka bixi karaa midaas. waxaa jira markaa midkaas saddexaad oo loo yaqaano service contract. service contract waa maxay? waa adigoo shirkad muqaawil ah soo ijaartay oo aad dhahaysid guri ii dhis. markuu guri lagu dhiso guri maxaa iigu dhisaysaa intaas lacagtaadan ku siinaa. markuu guriga dhammaadana anaa qaadanay. sidoo kale waxaa shirkadii u yeelaysaa waxaa leedahay betrol ibar. haddaa heshid oo betroolka uu soo baxo iyo qaabkii loo soo saaray waxoodin iigu soo saar intaas lacag ah. lacagtaa shirkadii la siinaya waana iska baxaysaa. lahaanshaha iyo wax kasta waxaa leh mataqaanaa dowladdii Soomaaliya yeelanayso. iyo habab kale oo loo yaqaano hybridka waa isku qas hababkaas ah. marka waxaa noo muuqato Soomaaliya waxyaabo badan oo xanibaya jira. waxaa jiri karto technology. waxaa jirta awoodda bani aadameed ayaa meeshii ka maqnaani karto. dadkii khibradihii ma laha. waxaasoo ilmida ka sii weyn lacagtiina lama haysto. Soomaaliya lacag haysanin oo aan khibraddii lahayn oo aan maaragtay waxaasoo idil ayna u dhammayn siday betroolkeed ku soo saaranaysaa. waa su'aasha qaabkan production sharingka uu ka jawaabayo. waa qaab loogu talagalay waddan xaaladeeda ku jira inuu kaga baxo oo betrool uu ku soo saarto. waa shirkadaa loo yeerayaa. shirkadda marka loo soo yeero shirkaddaasa waxay samaynaysaa sahmin. iyadaa helayso. iyadaa ceelashii wixii horumarinayso. iyadaa qaabkii betroolka loo soo saaray wixii dhan dhamaystirayso. betroolka markuu baxana marka ugu horeysa waxay kala baxayaan qarashkii ka galay. ka bacdina qarashka faa'iidada ahna wixii faa'iido ahna waa la wadaagaya. qaab lagu wadaaga la suubina. production sharing agreement modelka waa sidaas. laakiin waddan kasta asagoo guud ahaan micnahaas yahay ayaa haddana waddan kasta si gooni ah shaarka markaad tolanaysid qofka weyninkiisa ama yaraantiisa ama dhexdiisa ama balliciisa waxaasaa lagu tolaa. marka lagu leeyahay qaabka Soomaaliya modelka Soomaaliya marka la leeyahay waxaa loola jeedaa qaab u tolan baahida Soomaalida iyo baahida shirkadaha kale. marka tan waxayna siinaysaa shirkadaha waxyaabaha ay la kulmayaan riskiga sida loo qaadanayo waxyaabaha noocaas ah. wadamada isticmaala keena marka annaga aan qaadanay waa midkaas dambe oo production sharing contract PSC. production sharing contract 49. midka kale 59 waxaa isticmaala inta badan concessionada wadamada in badan betrol soo raadinayo kale sida Australia oo kale sida Mareykanka oo kale Canada iyo wadamada noocaas oo kale Brazil. inta badan concessionada isticmaalaan midka koowaad ay isticmaalaan. laakiinse taariikh ayaa ku dhex qarsoonaysa. 1960kii waa waqtigii wadamo badan ay gumaysiga ka baxeen. marka hadday shirkad ku timaado adoo haddana gumaysi ka soo baxay ee ku dhahdo betroolkaagana anigaa leh. wadamadii waagaas soo baxay waa diideen. waxay dhaheen maya gumaysi aan nagu celinina. marka production sharing agreement
modelkaas wuxuu ka soo baxayaa taariikhdaas oo gumaysi nacaybka ah concessionka wuxuu leeyahay macdanta meesha ku jirta anigaa leh batroolka ku jira anigaa leh idinka heshiisaan idinla galaya waxaa qaadanaysiin royalty waxaa qaadanaysiin cashuuraad maca salaama kaas annaga markaa midkaan qaadanay ma aha midkaas waa kan concessionka ah waxyaabahan ayagoo kooban meesha ku yaalaan waddamada marka PSC-da waddamada gaduudka isticmaala haddaa aragtid waxaa arkaysaa meeshan waxaan waa Asia China Mongolia India Nepal Vietnam Malaysia waddamadii waa kuwan حتى Papua New Guinea ee gaaraysa waxaan waa Indonesia Somalia Ethiopia Chad Africa intaas oo wareegaysa waa PSC waddamada isticmaala marka maabkan wuxuu ku tusinayaa waddamada isticmaala guduudka wuxuu u dhigmaa waa nooca Soomaaliya waddamada isticmaala waa u jeedaan waddamada horumaray sida Greenland oo kale Canada Alaska United States of America Brazil Venezuela Ecuador iyo waddamadaas ay u jeedid Argentina taas ah waxaa arkaysaa inay isticmaalaan concessionka waddama mix isticmaalaya jira iyo kuwa service contract Iran ka mid ah waxa service contract isticmaalaya waxaa ka mid ah Mexico waxyaabaha waddamada isticmaalaya marka wuxuu ku tusinayaa muuqaalka guud maabkan wuxuu ku tusinayaa muuqaalka guud sida loo isticmaalo heshiisyada kala duwan kaana marka waa heshiiska wadaaga soo saarka wixii ka soo baxa ayaa la wadaagayaa waxaan imaanaynaa marka production sharingkaas qaabka annaga aan dooranay waxaaba noo doortay markii hore sharcigii 2008 ee batroolka sharcigaas markii la qoray 2008 ayaa waxaa lagu qoray Soomaaliya concession dambe inayna qaadanaynin maxaa ay concession waxaa lagu galay waqtigii Maxamed Siyaad Barre heshiisyadii la galay iyo waqtiyadii ka horeeyay ee dimuqraatiga ee 1969 heshiisyada Soomaaliya ee galaysa kulligood waxay ahaayeen qaabka concessionka ay ahaayeen markii dambe hadda oo anaga aan soo dib u soo laabanay waxaa la suubiyay sharciga batroolka 2008 la qoray waxaana Soomaaliya ay ka wareegtay concession waxay u wareegtay PSC ama production sharing contracts waxa waaye soo saarka ayaa la wadaagayaa wixii dakhli ka soo baxo waa la wadaagaa kadib marka shirkadda wixii la heeday wixii ka galay shirkadda ajnabiga ama tan guud ama tan Soomaaliga ah hadday rabaan ha noqotee markii wixii ka galay ay la baxdo Soomaaliya markay heshiiskan hadda PSC-dan hadda anaga aan leenahay markaan samaysanayna ama PSA production sharing agreement heshiiska wadaaga soo saarka shidaalka markaan samaysanaynay annaga waxaan la tacaamulnay bangiga Afrikaanka bangiga horumarinta ee Afrika the African Development Bank bangigaas markaan la heshiinay heshiiskii aan la galnay wuxuu ahaa mataqaanaa in ayaga ay raadiyaan shirkado laakiin through bidding habka caadiga adduunka ee cadaaladda ku salaysan shirkado badan loo sheegaa loo bandhigaa shirkadahaas waa soo qoranayaan waxay soo qoranayaan bidkaas waxay ku sheegayaan khibradda ay leeyihiin waxay ku sheegayaan siday mashruucaas u fuliyeen mashaariic noocaas oo kale hadda ka hor inay fuliyeen wax noocaas oo kale marka annaga waxaa noo soo markii sidaas bangiga adduunka uu sameeyey bangiga Afrika horumarinta Afrika markuu sidaas sameeyey waxaa soo baxday shirkad la dhaho oo shirkadan IMA ayaa markaa aan dooranay oo aan kala soo baxnay shirkadihii tartamay ogaada waa shirkado badan ayaa u tartamay qandaraaska ah Soomaaliya in laga caawino lala sameeyo PSA qaabka Soomaalida ee rabto qaabka Soomaalida ee rabto markaa sidoo ku yimid wuxuu ku yimid markii shirkadan la doortay shirkadan annaga si continuous wada hadal u galnay informationka annaga aan haysano idan siinay oo aan leenahay qaabkan aan rabnaa shaarka sida noogu tal inta waa ballaarantaa inta ka yaray inta saa noocaas oo kale ah marka annaga tolanay qaabka Soomaalida hadda heshiiska ay shirkadaha ajaanibta ay kula gali doonto PSC-da Soomaaliya PSC Kenya way ka duwan tahay PSC Uganda way ka duwan tahay PSC Tanzania way ka duwan tahay Kenya annaga qaabkiisa samaysanay taas la socda wadan kasto noo yimaadana hoos laga xariiqo wadan shirkad kasto noo timaadana waxa heshiis lagu galaa
maaragtay heshiiska noocan ah ayaa la hordhiga kana loo dhiibaa la leeyahay kan soo buuxiya wada xaajoodka kana ku samaynaynaa shirkadday doontaba ha ahaato taas maxay keenaysaa transparency ayay kordhinaysaa daahfurnaanay kordhinaysaa waxay kordhinaysaa accountability si wax loo xisaabtamo wax kasta meeshay ku qoran yihiin marka labadaas arrin mararka qaar annagana lagu dacaayadeeyo la dhaho soomaalida waa corrupt waa sidaas labadii arrin waxaa looga hortagi kow waxaan qabnaa hal qaab oo midaysan oo contract ah labo waa daahfuran yahay saddex waa maaragtay asaga naftigiisa gudihiisa mechanism waxa ku jiro oo accountability kordhinaya waxyaabaha kale uu miisaamaya waxa weeye laba mid muslim sameeyeen kartid hal mar shirkadaha inaad u danaysid iyo Soomaaliya inaad u danaysid shirkadaha markasta waxay rabi karaan waxay si raqiis ah waxaaga inay ku qaataan in wadankaaga ay deegaan ahaan ay haleeyaan ay baabi'iyaan in maaragtay waxyaabo in dadkaaga ayna tababarin in maaragtay dadka community-ga aan horumar wax loo sameeyay isbitaalo loo sameeyay waxyaabahaas ay rabayaan laakiinse adiga maxaa rabtaa intaas hadda aniga aan sheegay oo ah deegaanka inaan laga hadlaynin marka batroolka la soo saarayo numberka koowaad in shirkadda si macquul ah iyadana xoogaa faa'iido ugu jirto adigana dan weyn ku ah oo Soomaalinimo ah inaad samaysid oo aad la gaartid kaas marka waxa la isu miisaama la dheelatiraa sidii wasiirka lahaa waxa la dheelatiraa baahida shirkadahaas ay u qabaan faa'iido badan inay sameeyaan iyo baahida Soomaaliya ee leedahay oo ah lacag badan inay ka soo hesho batroolkeeda lacag badan inay uga soo baxaan faa'iidada badankeed Soomaalida ay hesho ayna maaragtay shirkadda ha hesho laakiin si macquul waxa u qaadato taas ayay dheelitiraysaa ka gudubno waxyaabaha ugu waaweyn marka ku dhex jiray production sharing agreement modelka Soomaaliya waxa kamid ah wuxuu leeyahay management committee ayuu leeyahay oo ma taqaana guddi maaragtay markii aan rabnay inaan la galno heshiis shirkad kale shirkadaas iyo annaga waxa dad management committee ayaa la magacaabaya oo ah maanta waxa la qabanaa berita saasa la sameeyna markasta go'aanka gaaray go'aanka shirkadda kaliya ma gaarayso annaga qayb ahaan waa la gaarayna hawsha waa la wadeena midaas waa management committee-gaas waxa kale ku jirto wax la dhaho minimum amount work program ama work obligation waa loo yaqaana PSC-yaasha waxa waa shirkad markay timaado oo aad contract la saxiixanaysid waxaad ku qasbaysaa leedahay 6 bilood ka bacdiba soo guura imaada meeshii shaqooyinka aad qabanaysaana itusiya maxaa qabanaysaan ma waxa qabanaysaan 2D seismic oo aad wax ku hubinaysaan maya 3D ma samaynaysaan sanadka koowaad cilma qodi doontiin waxyaabahaas work obligations laha oo lagu khasbay shirkadaha inay dhaqdhaqaaq sameeyaan waxa la diidaa inay heshiiskaas saxiixdaan intay Houston Texas iska aadaan ay sanado ka maqnaadaan adigana shaqana ku soconin wixiina maaragtay laga baylihiyo ayaa la diidaya marka waxa loo jeedaa in shirkadda ajnabiga ah shaqa joogto ah lagu khasbo marka waxay imaanaysaa minimum amount of work waxa kaloo jirto marka shirkaddii waxay baartay dhulkan ay leedahay ka soo qaad dhul intaas la eg way baartay markay baarto akhiiran waxay leedahay batroolka wallahi dhinacaan aan ka helay leedahay dhinacyadii ay u muuqatay inay iyada waxba ka helin waa inay dhaqsaba warqad qortaa ee dhahdaa aniga dhulkaas hebel ahaa meeshaas ama baddaas dhinacaas ahayd coordinate-ka XYZ oo dhinacaas ku yeelay kii kale waa ka baxay waa inay ku sheegtaa ka bixidaas waa ku khasab marka sharcigeena wuxuu khasbaa shirkadda exploration-ka sanadaha hore 3 sano hore markay sahan samayso in shirkaddii ay u caddaato meeshay qaadan lahayd dhulalka qaarkiisna ay ka baxdo waxaa loo yaqaanaa relinquishment waxyaabaha kaloo yaabka ee leedahay waxa waaye cost recovery-gaas cost recovery
cost recovery-ga waxaa loola jeedaa shirkaddii lacaga ka gashay meeshii waxay rabtaa in lacagteeda dhaqso ee la baxdo laakiin Soomaaliya iskama fadhin karto inta shirkadda ay lacagta kala baxayso idil meeshii oo idil lacagtii ka gashay investmentii ka galay intay kala baxayso la iskama sugi karo lama fadhin karo Soomaaliya meel iskama fadhin karto oo lacag la'aan kuma maaragtay lacag la'aan meel lama fadhinayso waa in wax la siiyaa iyadana marka during cost recovery-ga waa in Soomaaliya lacag ay heshaa taas waa meesha ku jirta waxa kale oo meesha ku jira waqtiga profit sharing kana markii wixii shirkaddan ay ku laheeday maalgelintay samaysay markay dhamaatana ka bacdi markay dhamaato ka bacdina waxa la sameynaa profit waxa la helayaa mutaqaana faa'iidadaas waa la qaybsanaa laakiin waxa loo qaybsanaa si waxyaabo kala xukumo waxa xukumaya faa'iidadaas mar allaal markuu waqtiga sii socdo saamiga dawladda Soomaaliya waa soo kordhaa ilaa marka ugu dambayso saamiga ugu badan ay qataan okay intaas uga baxay kan please relinquishment waa kii hadda aan ka hadlayay oo ahaa area shirkad Soomaaliyeed waa ka qayb gali kartaa PSA inay ka soo tartanto provided that sida shirkadaha kale kulligoodba waxaa laga rabaa criteria inay meet gareeyaan oo ah financial capability waa kow iyo technical ability haddii ay leeyihiin technical ability iyo financial ability labadaas haddii shirkadda Soomaaliyeed ay gaari karto hadday buuxiso labadaba criteria loogu talagalay shirkadaha jiro oo labadii hadda aan soo sheegay waxyaabo kale oo jiro oo track record ay kamid tahay hadda ka hor maartay inaan waxba loo qabsanino ama wax soo halaynin ama pollution wadan dhan inayna xumaynin oo kale pollution wax ka sameyn waxyaabaha noocaas oo kale criteria loo fiirinaa shirkadda Soomaaliyeed iyada naftigeeda haddii criteria ay meet garayso why not in ay qaadato taas waa taas